بسم الله الرحمن الرحيم. training kan meesha maanta ka jiray oo socday 5 maalin oo maanta la xiray aan soo xiray soo afjaray waxay isku keentay xubno badan oo dawladda dadka inta badan qaabilsan ka hortagga maaragtay khatar nooca emergency amsa ahaato abaaraha anaga abaaraha inta badan emergency nagu amisa barakac oo nooc walba ku imaado fatahaad kala noqoya abaara noqdeena dab noqota niman oo professors oo ku takhasusay arrimahan ka hortagga emergency-yada ayaa tababarayay shaqaalaha marka training-ka waa muhiim sababtoo qofkan markaad ku shaqaynayo horta shaqada aad hayo inaad fahmo waa muhiim marka abaarahana runtii waa wax aad u soo noqda laakiin waxaan aaminsanahay wadan ahaan gobol ahaan county ahaan in aan waxyaabo badan oon ka hortag oon qaban lahaynay ay jirto abaar way jiri jirtay waana jiri doontaa waa la ogsoon yahay insha allahu tacaala bilaho ama sanadaho marka maaragtay ay sanadku suu ka toosta imtixaanka ayuu ka mid yahay in haddana maaragtay abaartin la soo maro haddana hadda waxaa isbedelaya maxaa la yidhahdaa ayto cimilada iyo waxyaaba badan climate change wax la ayaa jiro abaarihii naftikooda waa sii badan hayaan marka waxaan isku dayaynaa county government haddaan nahay waxyaabahan county lix ma quseeyaan hataa national bank kaga hadli hayna shir weyn oo isniinta loo yeeray ayaa jiro isu keena inta idaarad oo Kenya oo quseyso emergency-gan maaragtay abaaraha in ay maaragtay naf goyn oo dadkii oon u dhamaanin insha allahu tacaala aan isku dayaynaa waxaan ka tari karna waan ka taraynaa dhan raashin ahaata dhan biyo ahaata marka ummaddana assetska amse raasimaalka dawladda ay leedahay waa in loo baxsan karo waqtiyada sida hadda oo kale emergency badan ayaa hadda nahayso oo dhanka biyaha haddii maamulka biyaha raasimaalka biyaha aan leenahay uu ficnaan lahaa waxaan aaminsanahay maanta waxyaabo badan oo nagala tabanaya inaan awood u lahaan lahaynay inaan qabanno waxaan kala jeedaa haddaan ku darno 29 bohol oon hadda qalabayn hayno oon rabno insha allahu tacaala hadda iyo December taariikh 31 ka hor in la qalabeeyo aan rabno county-gan wuxuu lahaanaa 406 bohol 406 bohol 406 boqol oo bohol badidood waxay gacan ugu jiraan dad la yiraahdo bohol operator oo haasto maxaa la yiraahdaa ito ula haasto saan kuma socon karno kuwii ayaga ahaa maanta xafiisaha hortuuran oo leh baan baa naga halaabay boolkayna waa gubtay soolaaday dabeelaa qaaday wax shilin oo ka hayaan boolkina ma leh bulshadana bilaash kuma cabayso marka waxyaabaha maartay maamul xumada oo dhanka biyaha naga haysta ka mid tahay oona rabna inaan ka hortagno dhowr iyo 40 meeyo ayaan hadda hoos keenay Wajwasko kuwa kalena waan hoos keenayna insha Allah taala taageed ayaan siinay laakiin bulshada waa inay maaragtay ay naftinkeeda ay fikirto oo ogaato raasimaalkan waa raasimaal bulshada isku leedahay wax maaragtay laba qof oo tuugo in adeerta maaragtay ulu haystaan oo maaragtay ayaga ay si roon u maamulayaan maalintii ay halawdana dawladdu lagu soo tuura maaha dad badan ayaa nagu soo guuray anagooba tayna ayna haysato wajeer ahaan ayaa haddina bulshada hadde markii abaar dhacdo waa la kala hadayaa dad badan ayaa county-ga soo galay waxaan rabnaa amniga in la ilaaliyo Ethiopia laga soo guuray Mandera laga soo guuray county-yal kale badan oo dirisa laga soo guuray bulshada hadde qof walba xoolo ayuu maaragtay la haabaya bulshada hay isu naxariisato hal isu soo dhaweeyo
annagana dad badan oo annaga ah oo hadda maaragtay accounting ka socdo oo kuleet isilo email kala gala way jiraan ayagana waan ogsoonahay marka marxaladana waa wax Ilaahay keenay insha Allah ta'ala baan korin karo laakiin in ay dib dhicin ayaan bulshadii aan farayna